saacado iyadoo ay sii maqan tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo maanta booqasho qaadatay 4 saacadood ku tagtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho lana kulantay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa soo baxay warqad jawaab oo ka timid xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble jawaabna uu ahayd warqad ka soo baxday xalay madaxweynaha dawladda federaalka oo lagu mamnuucay in heshiisyo nooc kasta ay yihiin waqtigan kala guurka aan lala gali karin dawladda shisheeye xilli warbaahinta gudaha Soomaaliya tan Kenya ay qoreen macluumaad la xiriira in Soomaaliya iyo Kenya ay ka wada hadli doonaan dhacdooyinka badda oo muddo dheer ah mid taagan oo dhinacyadu ay isku mari waayeen nuxurka jawaabta ka timid xagga ra'iisul wasaare Rooble ayaa ahay mid uu ku cadeeyay inuu xaq u leeyahay galida heshiisyo caalami ah iyo nooc kasta oo ay tahay isaguna uu yahay qofka wada hawlaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Mr. Rooble waxa uu daha ka rogay in markii xukunka uu la wareegay ay jireen xaalado cakirnaan oo uu sheegay inay halis gelinayeen deganaanshaha dawladnimada Soomaaliya taas oo uusan faahfaahin dheer ka bixinin kasokow jawaabta Mr. Rooble waxa soo baxaya macluumaad kale oo cadeynaya in wada hadalkii maanta dhexmaray ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ay codsatay Nairobi in dhammaan si loo fuliyo ballanqaadyadii hore uga soo baxay wada hadaladii Djibouti iyo Ingiriiska oo ra'iisul wasaaruhu la yimaado Nairobi talaadada nagu soo wajahan mowqif cad oo siyaasadeed dawladda Kenya iyo ra'iisul wasaare Rooble xalay ayay yeesheen wada hadal xagga telefoonka markii ay soo baxday warqadda farmaajo isagoo xilligaasi u sheegay inaan waxba iska bedelin dhammaan qorshihii safarkiisa iyo kii wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ay ku tageysay Muqdisho ayna muhiim tahay in la fuliyo dhammaan arrimihii dhinacyadu ay hore ugu heshiiyeen Kenya waxa ay doonaysaa in loo saxiixo heshiisyo ay ka mid yihiin duulimaadyada qaadka iyo qodobo kale laakiin dhacdada xasaasiga ah ee ay midda Nairobi maalmo ka hor u gudbisay midowga Afrika ayaa ah in la dhexdhexaadiyo iyaga iyo Soomaaliya gaar ahaan kiiska dacwadda badda kaasoo ay midowga Afrika ku jawaab celiyeen in labada dawladoodba ay wada jir u sheegaan qoraalkaasi sida muuqata qoraalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa cadaatay inay kala xiriir furteen madaxweyne Farmaajo iyo wasiirkiisa koobaad jihada siyaasadeed ee dalkuna ay waqtigan tahay mid ay dhinacyadu aad isugu qaban doonaan marka la eego sida ay dhammaan darafyadu isugu diidan yihiin arrimahan gaar ahaanna in Rooble iska diiday qoraalkii Farmaajo ayaa ka dhigan tallaabo kale oo aan saadaali badan laga bixin karin ila madax bannaan waxa ay cadeynayaan in Rooble uu talaadada bixi doono oo uu aadayo Kenya isagoo halkaasi wada hadal kula yeelan doono Uhuru Kenyatta waxa la saxiixi doonaa heshiis qarsoodiya iyo mid la shaacin doono ayay xoguhu tilmaamayaan hanaanka wajahida dhacdadan ayaa la qiimeyn doonaa sida uu wajaho wasiirka koobaad ee Soomaaliya Kenya kasokow inay kiiska dacwadda badda u raadinayso wadiiqo kasta oo wada hadal looga furi karo haddana dhinaca kale duulimaadyada qaadka ee imaanaya Soomaaliya ay u aragtaa xilligan mid muhiim ah waxa ayna 3 jeer xoog ka saartay inay ku bixiso lacag ka badan 5 milyan oo dollar taasoo ku wajahanayd in darafyada saameynta ku leh dadaalka xilligan yimid waxa door ka qaatay mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya kaasoo bilihii ugu dambeeyay saldhigiisu ahaa dalka Kenya waxaana uu qayb ka ahaa go'aanada ra'iisul wasaaraha oo muddooyinkii dawaa ay ahaayeen saaxiib